waxaan shirkan jaraa'id igu kalifay inaan qabto xaaladihii u dambeeyey saddexdii ama afartii beri u dambeysay ka soo cusboonaaday magaalada Boosaaso. xaaladaasoo aan ahayn xaaladaasoo xaalad laga naxa ah, xaalad aan la filayn ah, xaalad jawigii Boosaaso lagu yaqaanay 30 sano xataa Soomaaliya colaadda ku jirtay jawi ka bedelan gelisay. xaaladaasoo na tusay hooyooyinkii iyo dhallaankii reer Boosood oo dariiqa lugeynaya oo magaaladii lug kaga baxaya, in magaaladii amni darro laga abuuray, ciidamadii dowladda la iska hor keenay, la isku laayay, tira ka badan kontameeye hadda inta la ii sheegayo ay dhimashadu marayso. ciidankii halka cadow lahaa ee halka difaac ku wada jiray maanta iyaga inay difaac isugu jiraan oo cadow isu yihiin, kala qaybin ciidan, burburin amnigii dalka, in lasoo banneeyo furimihii kooxaha argagixisada ay ku sugnaayeen. inaan maqlayo hadda argagixisada inay Boosaaso kaabigeeda fadhido oo rabto inay dhinaceeda ka soo gasho. xaaladahaas xaalado la aqbali karo ma ahan. waxaana abaabulkaas iyo colaadda iyo gulufka mas-uuliyaddeeda awal wa aakhir leh xukuumadda iyo madaxweynaha Puntland Sida Cabdullaahi Dani iyo golihiisa wasiirada ee u igmada hawsha inay halkaa ka qabtaan. waa nasiib darro isimada baaqowdii in la dhegaysan waayo, shala markay taliyeen in la ixtiraami waayo, in lagu gafo lacaayo, in mar walba oo xaaladdu ku adkaato oo ay isdhahaan dib isu abaabula ay dhahaan ismow noo imaada nabad baan qaadanay. markii isimadii nabaddii ay dhinacii kaleeto u tagaan oo ciidankii BSF u tagaanna oo ay aqbalaan oo mar walba iyagoo ay odayaasha u dhaga furan yihiin, markay is abaabulaanba baaqi ismada iyo xabad joojinta ay ballan qaadeen inay u hoggaansamayaan ay jabiyaan, oo tii shalay wasiirka amniga uu ka hadlayey xalayna ay xabadda ku bilaabeena. Boosaaso wax lagu fiirsan karo ma aha waxa ka dhacaya. wax intaa ka badan la dhihi karo walaalayaal oo xabadda hal la daayana ma ahan. ismada Puntland iyo waxgaradka reer Boosoodba waxaa laga rabaa inay mowqifkooda caddeeyaan, taladoodii iyo masaalixdii ay soo jeediyeen iyo sulxi ay galeen iyo dadaalkii ay muujiyeen, cidda mar walba dhabar jebinaysa inay ummadda u caddeeyaan, ummaddana u sheegaan inay iska qabtaan, inay warkooda caddeeyaan baa ismadii hawshaa galay laga rabaa. waa maqlayaa hadda maantay dagaalkii saaka iyo xalay markii ay ku jabeen markii afraad inay leeyihiin haddana sidii shalay oo kaleeto waa ogol lahay sulx iyo waanwaanti. dadku caqliga mala'a, mu'minna laba god lagama wada qaniino. isimada waxaa laga rabaa inaysan ku kadsoomin arrintaa dhagartaa la wado ee khatarta ah, dadkana soo hor istaagaan, runtana u sheegaan. ciidamada Puntland ee cadowga looga dhigay ciidankii Puntland ee u taagnaa difaaca iyo la dagaalanka khatarta ugu weyn ee maantay Puntland ay leedahay oo argixisada ah ee BSF, ee furinta looga dhigay xaruntii taliskii BSF ee Boosaaso inta laga soo saaray furimihii dagaalka ay kaga jireen, ama jiidaha xuduudaha ha noqoto sida Tukaraq ama ha noqoto Galgala iyo waxa weeye buuraha cadow ku jiraane, caawa difaaca ciidda looga qod ee ku dhimanaya, ee ku nafbaxaya, ee ku dhaawacmaya, ee ku dayacmaya, iyo saraakiisha hogaaminaysa ee dhalinyarada u badan ee aan u malaynayo in garaado loo kordhiyey iyo xoogaa mushahari kala weynaaday qiyamkii waxay u dhaarteen. waxaan rabaa ama u soo jeedinayaa walaalayaalow caqligu ha shaqeeyo. dalka idinkaa leh, tuutaad u xirateen, dalka inaad difaacdaan oo cadowga ka difaacdaan baa tuutaa u xirateen. dalka inaad khatar amni idinku noqotaan tuutaa umaydnaa xiran. siciidani mushahar idinma siiyo, xaquuqda canshuurta shacabkiina laga qaado baad mushaharkiinu wey. siciidani kii dhinta agoontiisa biili mayo, siciidani kii dhinta dhaawiciisa dhayi mayo. wallaahi danna kama lahan. caruurtiisu dabadahay ku raaxaysanayaan, nololtan ugu sarraysay ku jiraan. haddii dheg laga qabtana isbitaallada ugu qaalisana boqolaal ku baxayso buu geynaya.
caqligiinu ha shaqeeyo damiirkiinu ha shaqeeyo ciidamada puntland duruuf bay ku shaqeeyaan adag waxa keliya ah ee ay mar walba ku dhegan yihiin waa moralka iyo niyadda ay aaminsan yihiin inay dalkooda iyo dadkooda difaacayaan ninkii ku dagaal gala oo lagu dagaal geliyo BSF baa cadow ee ku dhinta waa ahlu naar ninkii shaki ka qabo culimada u tag ninkii naar u socdoona hadda gal ninkii ujeedadiisa tuutaha uu xiranaya ay tahay inuu ama xogaa manfaca helo ama darajo ciidan uu helo oo isla darajo ka raadiyo saraakiisha dhalinyarada ah hadda darajooyinku u cusub yihiinow dee waddadaa ku soco kuna guulaysan mayse ninkii u taagnaa inuu dalkiisa iyo dadkiisa difaacana walaalow meeshaani maaha meeshaa ka difaaci lahayd xarunta BSF maaha meeshaa ka difaaci lahayd BSF maaha cadowga puntland ciddaa u shaqaysaan maaha siciidani maaha waa shacabka haddaad shacabka ilaalinaysay shacabkii boosaaso xabadaadii baa magaalada ka saartay dariiqyaday luku marayaan qoraxdii iyo kulaylkii boosyada la ogaa waxayna khatar ugu jiraan in wadooyinka ama bahalo ku cunaan ama ay haraad iyo gaajo ugu dhintaan milkiyadda dowladda waxaa dowladda ah shacabka puntland madaxdu ma ahan dowladda waa adeegayaal awaamiir khaldan haddii laydin siiyo oo dalkiinna iyo dadkiinna aad ku burburinaysaan oo aad qaadataan aakhirana ka tagtay adduuna wajiinima yaal kuna guulaysan maysaan wayna ka muuqataa afartii dagaalo hadda dhacay ciidanka halkaa la geeyey ka tira badnaa BSF wuxuu watay waa la ogaa waxaa jebinayaa waa xaqa waan tooba dalkiinna iyo dadkiinna u fekera oo u naxa oo aamina kitaabka inaad iyaga u marteen aydinaan u marin ashkhaas xilal haya iyaga intaasaan warkood isku sokoobaya dadka reer boosaaso ee boosaaso degan ee ganacsiga ku leh ee aan qabiil ahayn ee Soomaali oo dhan ah ee dushooda lagu dagaalamayo ee dushooda ciidamada lagu soo daabulay ee ciidankii amnigooda sugayay ee keligood la joogay intaasoo meeloodoo kale inta ciidamo laga soo qaada la dulkeena lagula dul dirirayo ha noqonina abaallaawayaal ha noqonina abaallaawayaal ku abaalka dhacay BSF waxay idin qabatay ama amnigiina ha sugto ama horumarka si gaar magaalada uga qayb qaadato ha ku abaalka dhicinina wiilashii dhaxanta idin taagnaa ha ku abaalka dhicinina saraakiishii amnigiina iyo horumarintiina magaalada iyo dhiraynta magaalada ka shaqaynaysa habeen iyo maalin ha ka aamusinina waxa dhacaya haddaad ka aamustaan oo indhaha ka daawataan ninkii ganacsi lahaa ganacsigiisu waa xirmi ninkii carruuru joogtay ama xabad baa la tegey ama kabalaan bay waxa weeye lug bay magaalada kaga bixi foolxumo iyo dayac baad ku noolaanaysaan aakhirana ehelu naar baa tihin dhammaan dadka boosaaso ku nool boosaaso waa magaalo halbowlo u ah guud ahaan Soomaaliya Soomaali oo dhan baa ku nool qof kasta oo boosaaso ku nool oo wax ku bartay ama ku shaqaystay ama ku ganacsaday ee ku liibaanay ee u doodi waaya dhibka maanta iyo dayaca lagu hayo ee hadday dood dhaafto naftiisa u huri waaya abaallaawo weeye ilaahay hortiisuna ka helaya u istaaga magaaladiinna difaacda ka difaacda cadowgu ma ahan argagixiso keliya ma aha kaad xilkiiyo mas-uuliyadda u dhiibatay baa cadow kugu noqon karaa haddaad u hogatidna waa adiga haddii aad iska qabatidna dee waa adiga waad aragtaan isimadii baa la karaamad dilay cid kastoo sama ka talinaysaa la karaamad dilay culimadii baa la karaamad dilay waxa hadda boosaaso lagu wadaa boosaaso 3 sano madaxweyne Siciid joogay horumarkeeda iyo matalaadeeda iyo amnigeeda cidii ka shaqaynaysa la diray kow waxa ahayd culimadii iyo injineeradii iyo nabadoonnadii iyo samakataliskii iyo suxil qaamay wadada boosaaso dhex marta inay dhisaan oo godad ahayd barqo xabsi ku guray kulayle iyadoo lagu jiro indhahaad ka daawanayseen waxaad u arkayseen ashkhaas isqabtay inay ahaayeen kamana aydna dhidhiin
baarlamankii u doodayay dekeda boosaaso barqacad baa lagu soo duulay malaayiin dollar oo lacag oo shirkad imaaraada laga soo qaaday lagu bixiyey ciidamo la duldhigay la inqilaabay waxaad u arkayseen siyaasiyiin isaya kama inaan dhiidhiin maslaxadiina kuwa amnigiina sugaya 20 sano u taagnaa maantay dushiina xabadi ku socotaa oo kuwa aan maalin ogeyn ama maalin aan taaka boos ku darsan maanta leeyin waa cadowga shacabka oo BSF la diranayaan xabad ku ridayaan indhahaad ka daawanaysaan reer bari waxaa lagu xantaa sida xididkiina u sheekaystaan oo marka la wada joogana la wada qoslo marka la kala tagana la isxanto ceeb baynu ku tahay ilhaam baynu ku tahay wixii aan idin qaban ee aan magaalada qaban ee aan reer Puntland oo dhan qaban inaad ka hadashaan diidaan hadday ka fursan weydo naftiina u hurtaan aw siyaasiyiinta reer Puntland aw siyaasiyiinta reer Boosaaso nin walba indhaha u xiran oo waa xishoonaya kuwa waxay raajicinayaan xubin xildhibaannimo oo matalaada dadkiisu leeyihiin Saciid Dani baa ka hor istaagaya kuwa raajicinaya armaad wasiir ka hesha ama baal ka hesha war xaquuqdayadii baan uga tagnay oo noloo inqilaabay xaqa Boosaaso inaan ka hadalno oo wax kasta madaxayga dusheeda noloo sheegay oo danteeda gaarka inaan ka raacano manfac ama mansab kooban masiirka ummadiisa ninkii dhaafsada ilaahay dulli buu ka dhigaya adduun iyo aakhiro kuna liibaani mayo codkiina inaad banaanka keentaan baa laydinka rabaa siyaasiyiinta reer Puntland guud ahaan gaar ahaan reer Boosaaso runtana ka hadashaan shacabkana la hadashaan af iyo aadin waxaad ku qaban ka dhaan duulaanka booso lagu soo qaadana aad u istaagtaan madaxweyne Saciid anigu ma garan karo Boosaaso sida la ii sheegay ama isaguba afkiisa uu iga sheekeeyay qaxibuu yimi waa ku bareeray waa ku barwaaqoobay ganacsi buu ka bilaabay waa ku bulaalay magac buu ku yeeshay maal buu ku yeeshay waa magaaladiisii waa degaan ma ahan maanta ninkii aqbali lahaa dagaal xawlaado loo soo xawlay isagii in loo soo adeegso madaxweynihii Puntland wixii ugu sareeyay lagu sharfay ninkii Boose maanta dumin lahaa maaha caqligiisa Allah soo celiyo waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa warka saakay aan idaacadaha ka dhageysanay ee adeerkay xurmad leh madaxweynahayga hore Cabdiraxmaan Maxamed Faroole uu ka jeediyay BBC-da oo uu ku aflagaadeeyay isimadii gobolka bari oo uu bareerihiisii dhabta ahaa kaga hadlay dagaalka Boosaaso iyo aragtidiisa iyo waxa uu ka qabo iyo talada uu ku leeyahay waa madaxweynihii Puntland waa asaasayaashii Puntland waa senator maanta Puntland waa ninkii aabaha u noqon lahaa maanta ee soo dhex fadhiisan lahaa Boosaaso wuxuu qiray shalay BSF iyo isaga markay iskhilaafeen oo khilaaf ka dhacay isagu garashadiisa xukunka uu hayay inuu ku dhameeyay wadiiqadii wada shaqayntii u dhacaysay BSF iyo dawladda Puntland iyo wadankii taageerayay oo ina ka taageerayay taageerada dhaqaalaha iyo tababarka ciidamada BSF ciidanka BSF hay'adaha dastuuriga ah ciidamada kuma jiro xeer sharcina laguma soo saarin oo kuma dhisna waa hay'ad amni oo duruuf amni oo la dagaalanka argagixisada ku asaasantay waxaana taageeradeeda gacanta ku hayeen nimanka saraakiisha ah ee reer Puntland ee Soomaaliyeed iyo taliska Africom ee Mareykanka wixii laga bedelayo iyo wixii ku soo kordhaya iyo wixii laga sameeynayo tala lagu wada leeyahay bacda talo go'aanka markaas dawladdu wada jir bay qaadanaysaa madaxweynuhu qaadan jiray laakiin in dhabarka laga jabiyo BSF warka ay soo saareen taliska Africom ay ku cadeeyeen inay u hiilinayso argagixisada ba dadka wax garadka ah Soomaaliyeed oo dhan aaminsan yihiin maantana ciidamadii furimaha ku jiray ee laga soo rogay furimaha
shabaab baa yimi waa soo dhaafeen kaabiga magaaladayna joogaan waa laga wada warhayaa marka cidda tallaabadaa qaaday cidday u hiilinaysa waa caddahay adeerkii cabdiraxmaan dastuurka puntland ee aad isimada ku jaa'ifaysay ee 108 qodobka aad adeegsatay waxaad dafirsan tahay waad barqaca dafidhay qodobka 62 oo ah xubinnimada iyo xasaanadda markii baarlamanka siciidan inqilaabay uu soo weeraray ururadii siyaasadda ee puntland ay ka hadleen ay cambaarayeen 2 xubnood baa kaaga jiray ururkaaga horseed waa canaanatay guddigana waa ka saadhay qoraalna waa soo saadhay kama mid ah tiri haddii wax lagaa weydiiyana xogtu waxay nagu soo gaadhay inaad tidhi nin baa nagaga jiray haddaan reer nugaaleedna isagana isimadiisa raalli ka ah adeerow doonistaada maaha dastuurka puntland rabitaankaaga maalinna mid inaad jeebkaaga kala soo baxdid oo dadka ku jaa'ifaysid maalinna aad hoos marisid dastuurka puntland ma aha waa heshiis bulsho oo ummadoo dhan ka dhexeeya ummadoo dhanna wada qabta odayaasha dhaqanku iyo xeer beegtidooda iyo garta ay gaaraan waa dastuuri waajib ah in loo hoggaansamo dowladdu hoggaansato goormaa leeyahay odayaasha puntland baa ka talinaya fawdadii iyo burburinta puntland soo nimankay ku dhisnayd ee aynu soomaali kaleba ugu faani jirnay in markii xaaladdu inay ka xumaato odayaashu dhex fadhiistaan ma ahayn waxaan rajaynayaa inuu hadalkaa raalligelin ka bixiyo aniga ma ahayn adeerkay ninkii u jawaabi lahaa laakiin haddii saaxiibadiis senator juluul oo kaleo reer boosaah ama ragga la ayniga ahaa ay ku daawanayaan u jawaabi waayaan waa waajib in runta la isu sheego da'duu raba ha jiro qofka muwaadinka haddii hadalkiisu dhinac u leexdo waxaan rajaynayaa adeerkii inuu balajaysi samada siiyo ciidanka hadda ka dagaalamaya ridaya waa BSF in gaar loogu leexiyo waxbay gaar u sheeganayaan ciidanka hadda ka dagaalamaya uu wato korneyl jimcaale ma hub dowladeedba hubkii adeer cabdiraxmaan faroole xilligiis markii dowladdu ka dhacday uu jimcaale ku wareejiyey bay ciidamada hadda lagu samaynaya tirakoobka markhaanti baa laga wada yahay laguma samayn tirakoob lama dhexgelin xilkana lagama qaadi karo hubkaasna lama wareejin karo maanta sarkaal kale oo puntland looma dhiibi karo ciidamada puntland weli habkii qabaa'ilka kama dhammaan xalka koowaad ee lagu dhammaynaya ah yaysan noqon xabad caqligu ha inoo soo noqdo reer boosaasodow ama u istaaga badbaadada magaalada ama dee dushiinna boosaaso ha ku dunto caruurtiinna iyo xaasaskiinnuna luka kaga baxeen magaalada sida hadda wax ku socdaan magaaladu waa dumaysaa shabaabna waa soo gelayaa daacishna waa soo gelayaa wallaahi kuma noolaan doontaan kabalaan baa kaga wada qaxaysaan haddaydna hadda istaba qaban